ما يدول إن ما أنت خطرك جرتو والربع إن لو قلقش وقبض بكوه الرئيس صار يا ما أنت وحوي معاك الدحية جبلان يتقرأ تبلفك إيوه كينيا صدق هذا معاك الدحية وحصوب حين اللي راضو أمباسطور أسماء أو جنرال أو جنرال دي تقرأ رجي حمر ولي بابيي سومالي لاي أيو كم ينكاس آد بعض دعوتنا يوتيوب كوجرة وركي سنة ودي ستين حمرنا آد باللغة السوداء بررونا الجماعة وين وجه داي أحمد مذوبة إنه نمارسه كفر دي أهين إوجا شامبور لرادو صدق جيسكا تقرأ يجبلان يكين إنه كوجري وما أنتنا هاو مارت النكاس يو وليه gaashaanbuurtii maadaama annagii tigreehan lana baabiyay haddana waxa nagu darayaa Jubbaland iyo Kenya ayaa lagu duulayaa buu leeyahay oo wuxuu soo sheegay yaana maartaanay gaashaanbuur kale oo saddex gees ah oo uu soo ku sheegay gaashaanbuurta sharka oo uu leeyahay waa Farmaajo iyo Abi Ahmed iyo Afawarge saddexdaas maanta yaana igad ka maarmay ayay saddexdaas gaashaanbuur samaysteen oo ku duulayaan buu Jubbaland iyo maartaanay Kenya تاكو ديران ما ينكا مارتي odagii wuxuu noo cadeeyay wax naga daahnaa ana runtii ka daahnaa aniga laftayda iyo heerka inuu Axmed gaaray ma moodeynin waa arrin khatar ah taas aan waliba inagu waxaan haysanaa gobol kamid ah gobolada Soomaaliyeed oo doorasho ka dhacdaad leedihiin taa idinku isku noqdo Soomaaliyeed meel kasta joogtaan gudiga dibadda geesta kale Sheekh Xasan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu shaaca ka qaaday balcidda ka dambeysay aasaaskii fikirka federalismka ee dawladda Soomaaliya qodobka labaad ee aan maartay soo qaadaya waxa weeye ninka asmaamo aw cadeeyay janarkaas aw cadeeyay waa tii aan in badan ka hadlay ee ahayd maartay waxa loo yaqaan federaalka wuxuu federaalkii aan u sameynay Soomaaliya oo uga jeednay buu dawladda yar oo daciif ah oo anagu maamullo aan ugu talagalay ayaa hadda maartay Farmaajo iyo kooxdiisu inay baabiyaan aan ka baqayaa buu oo maartay ka deerinaya waa taatan wuxuu idin cadeeyay inaan ahayn maartaanay waxaan federaalka la raadiyay wax Soomaali u dana inaan ahayn oo Soomaali dooratay inaan ahayn laakiin Tigreegu inoo sameeyay 100 jeer horna waan ka hadlay Soomaali hadda tiina Tigreedna ma anfacayo dawlad maartaanay Soomaaliland la raado qabiil ah dawlad Puntland la raado qabiil ah Hirshabelle maanta waxa balweyne ka socda wada ogtiin maartay reer loo kala baxay maartaanay Jubbaland waa taa way ku deysay maartay iyo koonfur galbeed maxamed dawladahani federaalka tiisani muxuu yahay waa in dhaqso looga noqdaa oo maartay federaalka laga noqdaa oo la baabiyaa oo dawladda Soomaaliyeed midnimada loo noqdaa federaalkaasina alxamdulillah ilaahay baan ku mahadinayaa inuu janankii sameeyay oo asmaamo iyo gabre ay maartay ka mid yihiin ana maartay inay idin cadeeyaan maanta qodobka kale ee soo qaadaya waxa weeye muxuu ahaa ninka u jooga kooxdani beesha gumaysiga aan u bixiyay الحمر فردها حلنا فردها نيكا يوروبيان كومن مارت يوروبيان يونيون نيكا وجهها مارت مدوغا يوروب نيكا وجهاي wuxuu yiri maar khudbadiisa maalintii dhaweed laba cisho ka hor wuxuu yiri in markan mucaaradka xamar joogay wax doorasho ka weyn bay doonayaan buu yiri aad ugu fiirsay kelmadda ninkaas uu yiri waa xigmad weyn oo maarta inaga soo daadaadanayso inaga soo duulaysa weeyaan dadka inaga lafteena ina gumaysanaya wuxuu yiri nimanka maarta mucaaradku waxay doonayaan wax ka weyn doorasho oo ah inay Farmaajo khaarijiyaan Farmaajo horta waa nin shakhsi ah waxa saa u mathala dawlad buu mathala dawladnimana 4 sanadood buu si fiican u hogaaminayay على الأقل qaladaad kasta oo kale hay yimaadaan laakiin dawlad baan maanta u egnahay khaasan xagga ciidamada iyo maartay awoodda iyo muuqaalka iyo ictiraafka adduunyada marka ninkaas wuxuu cadeeyay inay u urureen nimanka dhowr iyo 10kii madaxweynenimo inayna doonayn ay doonayeen kaliya horta in la isku tago Farmaajo waddanka laga khaarijiyo sababtoo imaaraadka saa doonaya Kenyaanka doonaya cadawga oo dhan ee Soomaaliya ayaa saa doonaya waxaad maartay aadan u la yaabanahay waxay yiraahdeen xoolihi hantida ummadda ayuu Farmaajo iyo dawladdiisu ay boobayaan bay yiraahdeen horta ninkii tuug ahaan jiray tuug buu ku moodaa mar walba cid kasta tuug buu haystaa waxa weeyaan Farmaajo haddii uu yiri maartaanay wasiirkiisa batroolku iyo shidaalku hadduu yiri Turkigan sicir shidaal seenana noo qodo Turkiga waa walaalkeen waa cid maanta Ilaahay intii ka sokaysa inoogu dhow islaamnimo iyo dadnimo bay inoogu dhow sabab loo yiraahdaa yaana shirkad maartay Turki ah oo maartay
wax ceel inay qodal maartay laga rajaynayo hanti ummadeed ayaa la boobay sida loo yiraahdaa taasina waa qalad weyn weeyaan oo in laga xishoodo ah nimankan waxa leeyahay wuxuun isku fala أنا دمانتود نمكاسي وودا أن وصاحب أهين أغلبية دود جبيجودبا أي وأد بنسكو كرنا كحشود الله وحيابها فورش تعمل له يفعل هذا سكت دايان له gabagabadii sheekh ayaa waxa ku hadlay aragtidiisa ku aadan hadalkii dhawaan ka soo yeedhay madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump ee ahaan ciidamada Mareykanka guud ahaanba laga saaro dalka Soomaaliya sheekha ayaana waxa uu yiri Mareykanka waan baxaynaa oo ciidanka waan la baxaynaa